السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعنا وناكسن داوداياشي دا قيمة أي قدرين تمدن ومالك استان نقد داون إيسان كسر دواد وروحي نقصو قاري ديغانا دا إسومالي دكتي عالم كينتي سكالا وركوحي دي كيمانيا تلفيشك عالم جاي KBN حرمتي سمقالة دا هرقيسا وركوحي دي لسعود سين إيسان وافيسا حسن أحمد قضبدا وركين هبين موقوا وين وحكامي دا madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo xilka qaadis iyo magacaabis ku sameeyay wakiilada Soomaaliland oo fadhiya dalka dibadiisa. Xukuumadda Soomaaliland ayaa maanta markii ugu horeysay ku dhawaaqday guddiga taakulaynta beledweyne. Ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed ayaa la kulmay taliyaha ciidamada Mareykanka ee Afrika. dawlad deegaanka Soomaalida ayaa koox dhaqaatiir iyo daawooyin ah u dirtay bulshadii ay saameysay fatahaadaha beledweyne. daawadayaal kuwaas waa qodobadeennii ugu waaweynaa mikii haatanna iyagoo faahfaahsan ku soo dhawaada. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa xilka qaadis iyo magacaabis ku sameeyay qaar ka mid ah wakiilada Soomaaliland oo fadhiya dalka dibadiisa. war qoraal ah oo ka soo baxay xafiiska afhayeenka madaxweynaha Soomaaliland ayaa lagu sheegay in uu madaxweynuhu sameeyay xilka qaadis iyo magacaabis qaar ka mid ah wakiilada Soomaaliland oo fadhiya dalka dibadiisa waxaanay u dhignayd sidan wareegta madaxweyne xilka qaadis ku socota Maxamuud Cabdi Dacar wakiilkii hore ee Soomaaliland ee midowga Yurub ku socota ayaan Maxamuud Maxamed wakiilkii hore ee Soomaaliland ee dalka boqortooyada Ingiriiska ku socota Sulub Warsame Xuseen wakiilkii hore ee Soomaaliland ee dalka Norway ku socota Cabdalla Muuse Axmed wakiilkii hore ee Soomaaliland ee dalka boqortooyada Sacuudiga ku socota Cali Maxamed Axmed wakiilkii hore ee Soomaaliland ee dalka Yemen og Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiire wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah xilka mudanayaal iyo marwooyin sidaad la socotaan xilka qaranka ayaa dabcigiisu tahay in uu meerto noqdo oo hadba loo igmado cidii hanan karta sidaa darteed waxaan gartay in laga bilaabo taariikhda maanta aan idinka qaado xilkii aad u hayseen qaranka waxaan idinka mahad celinayaa muddadii aad hayseen xilka qaranka magacaabid markan arkay dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland qodobka 9aad markan tixgeliyay ahmiyadda wakiilada dibadda ee jamhuuriyadda Soomaaliland u leedahay dhismaha qaranka markan arkay aqoontooda kartidooda iyo waayo aragnimadooda markaan ku qancay inay hanan karaan mas'uuliyadda ka dhalanaysa xilalka markan sameeyay la tashi waxaan go'aansaday in laga bilaabo taariikhda maanta aan xilalka u magacaabo Cabdi Cabdilaahi Xirsi Maxamed wakiilka Soomaaliland ee boqortooyada Ingiriiska Salaan Xasan Kayd Cabdille wakiilka Soomaaliland ee midowga Yurub Yuusuf Maxamed Guuleed wakiilka Soomaaliland ee dalka Itoobiya Maxamed Maxamuud Aadan wakiilka Soomaaliland ee dalka Norway Axmed Jaamac Xasan wakiilka Soomaaliland ee dalka Koonfur Afrika Mustafa Yuusuf Ismaaciil wakiilka Soomaaliland ee dalka Jarmalka Ali Axmed Cismaan wakiilka Soomaaliland ee dalka Sacuudi Arabiya Axmed Cali Salaad wakiilka Soomaaliland ee dalka Yemen Barkhad Maxamuud wakiilka xigeenka Soomaaliland ee dalka Itoobiya waxaan uga mahad celinayaa wakiiladii hore ee Soomaaliland muddadii ay hayeen xilalka qaranka Fiise Xasan Axmed magaalada Xukuumadda Soomaaliland ayaa maanta markii ugu horeysay ku dhawaaqday guddiga taakulaynta beledweyne warka waxay noo soo diray wariyaheena Xamse Khadar Maxamed. Xukuumadda Soomaaliland ayaa maanta markii ugu horeysay waxay ku dhawaaqday guddiga taakulaynta dadka reer beledweyne ee waxyeeladu ka soo gaadhay fatahaada webiga. guddidan oo ka kooban ganacsato madax dhaqameed culimo iyo siyaasiyiin ayaa shaaciyay in ay noqon doonaan guddi u dhaxaysa magaalooyinka iyo degmooyinka looga ururinayo taakulaynta. mas'uuliyiintii halkaasi ka hadashay waxa hadaladoodii ka mid ahaa halkan waxaan isugu nimi inaan ku qabanno war-saxaafadeed aan ku cilaaminayno laba arrimood ta hore oo ah dhibta ka dhacday Soomaaliya gaar ahaan beledweyne oo aan war ka sheegayno iyo guddi aan u magacaabayno hawsha inay wax ka qabato sida wada ogtihiin masiibad dabiici ah ayaa ka dhacday Soomaaliya gaar ahaan beledweyne oo ay ku fataheen wabiyadii halka waxa ku barakacay in ka badan 300,000 oo qoys
xanuuno ay ka mid yihiin malaria iyo shuban dhib weyn baa halkaa ka dhacday waddan kasta oo ay Soomaali ku nooshahayna waa dad walaala ah dhibta mid ku dhacdaana ta kale way ku dhacday sidaa darteed waxaa sunno inoo ahayd inaynu wax iska tarno howlaha 2011kii abaartii ka dhacday Soomaaliya Somaliland xukuumad iyo shacbiba si mug leh ayay uga qayb qaadatay isla markaa dhibtii ka dhacday 2017kii Soomaaliyana si mug leh ayay iyaguna uga qayb qaateen oo ay ugu soo gurmadeen walaalahooda reer Somaliland sidaa darteed waxaan halkan ku magacaabay guddi dhexe oo ururisa qaaraanka loo gurayo beledweyn maadaama maalmihii aynu soo dhaafnay laga abaabulayay dhammaan Somaliland qaaraan ururin gaar ahaan Burco Laascaanood Boorame si aynu qaaraanka u midayno guddi dhexe oo lagu soo wada ururiyo ayaynu halkan ku magacaabnay waxa kale oo aanu wada hadalnay madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi oo isaguna nagu booriyay hawsha inaanu galno isaguna diyaar u yahay markaanu soo gabagabayno inay xukuumaddu diyaar u tahay inay si weyn oo miisaan leh uga qayb qaadato aanu ku ballansanahay caynka waxaan halkan ka sheegi doonaa magacyada guddiyada oo iyo shirkadaha ay ka socdaan runtii halkan waxaanu ku magacawnay dad aad looga yaqaan Somaliland oo khibrad u leh dhibaatooyinka dhacay sida loogu gurmado kana soo qayb qaatay masiibooyin badan oo ka dhacay dalka gudaha iyo dibadba had iyo goorna lagu yaqaano xasanaadka inay ka shaqeeyaan guddida Jamaal Caydiid Ibraahin oo gudoomiye ah xagga rugta ganacsiga ka socda Kayse Shukri Jaabac oo xubin ah Daryeel Maxamed Axmed Faarax oo loo yaqaano Food Sheekh Ciise Maxamuud Cabdilaahi Cabdiraxmaan Cali Cabdi oo ka socda Dahabshiil Group Sheekh Maxamed Cali Geedi Sheekh Axmed Aadan Buuxane Cabdiwahaab Maax Maxamuud oo Talasam Group ka socda Sheekh Cabdirasaaq Xuseen Cali Cabdirasaaq Ibraahin Maxamed Xasan Axmed Xuseen oo loo yaqaano Xasan Bulbul oo isna ka socda Sunpower Suldaan Axmed Xasan Jaamac Cali Ibraahin Ciise Cali Waraabe oo ka socda gudoomiyaha Waraabe Group Sheekh Maxamed Aadan Cadhoole Dr. Farxaan Liibaan Axmed oo isna Liibaan Company Sheekh Cabdiraxmaan Abu Axmed Abwaan Yuusuf Shaacir iyo Xamse Cumar Kujoog waxaa halkaa ku jira oo ka tegay Sheekh Cabdirasaaq Ibraahin Maxamed oo Haas Petroleum xamse qadar maxamed xamse xadaari telefishinka caalamiga ee KBN magaalada Hargeysa Ra'iisul Wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed ayaa la kulmay taliyaha ciidamada Mareykanka ee Afrika warka waxay noo soo diray wariyaheena xamse xadaari General Stephen Towson oo soo gaadhay caasimadda Itoobiya ayaa kulan la qaatay ra'iisul wasaaraha dalkaasi Itoobiya Dr. Abiy Ahmed xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa sheegay in generaalku ugu hambalyeeyay ra'iisul wasaaraha abaalmarintiisa Nobel Peace Prize Award isagoo ku tilmaamay mid muhiim u ah dalka Itoobiya iyo gobolkaba Dr. Abiy Ahmed iyo generaalka ayaa ka wada hadlay xiriirka dheer ee ka dhaxeeya Itoobiya iyo Mareykanka gaar ahaan dhinaca iskaashiga military sidoo kale waxay ka wada hadleen xoojinta taageerada muddada dhow iyo muddada dheer iyo xoojinta dhismaha ciidanka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed ayaa sheegay in dib u habeyn lagu sameyn doono ciidamada difaaca ee dalka Itoobiya isagoo sheegay in ay dawladda ka go'an tahay sidii ay u dhisi lahayd ciidamo aan dhinacna ama koox gaar ah u janjeerin sidoo kale waxa naga go'an ayuu yiri ra'iisul wasaaruhu dhisidda ciidamo taageera dimuqraadiyadda dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa u dirtay koox dhakhaatiir iyo daawooyin bulshadii ay saameysay fatahaadaha beledweyne xafiiska caafimaadka dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa maanta daawooyin iyo koox dhakhaatiir ah oo ka kooban 8 xubnood u diray magaalada beledweyne wasiir ku-xigeenka xafiiska caafimaadka dawlad deegaanka Mudane Cabdiwahaab Sheekh Maxamed oo aan bixiyay
agabkan iyo kooxdan dhakhaatiirta ah ayaa sheegay in ay xukuumaddu daawo qiimaheedu yahay 15,000 oo dollar iyo koox caafimaad ah u dirtay shacabka ku tabaalaysan beledweyn ee ay saamaysay fatahaadda webiga. waxaa xusid mudan in shacabka Soomaaliyeed meel walba oo ay joogaan ay ka damqadeen masiibada ku dhacday Hirshabeelle gaar ahaan magaalada Beledweyn iyaga oo u fidiyay gurmad ballaaran. Daawadayaal intaa waxaa inoogu soo dhamaaday war wixii naga soo gaaray deegaanada ay Soomaalidu degtay caalamka intiisa kale. warka waxaa idin la socodsiinaysay anigoo Afiisa Xasan Axmed tan iyo kulanti dambe oo xiiso leh.